kuwaasi ka soo badbaaday tahriibka badda nolosha cusub ee Yurub ayaa ku adkaatay. Cabdiraxmaan Koronto ayaa ku booqday wiil yar oo Soomaaliya koonfurta Jarmalka kaasi oo isweydiinaya inuu qaatay go'aankii saxda ahaa. Cabdiraxmaan Aadan Xasan aroor hore ayuu ku kalahayaa iskuul uu ku barto luqadda Jarmalka waxay fure u tahay noloshiisa cusub ee halkan. Si uu halkan u soo gaaro wuxuu soo maray safar saxaraha ah iyo dhul buuraley ah. 17 markii uu jirsaday ayuu go'aansaday in Yurub uu ka heli karo mustaqbal wanaagsan. Waa go'aan dhibaatona ay ka soo gaartay. waxaan imid gurigiisa cusub oo ku yaala tuulo Jarmalka ah oo dadka howlgabku ay degaan. dad aan garanayo wajiyada toos wada garanay horteeda ku dhintay aan waxba qaban karin anigina markaa xitaa aan awood lahayn. asxaab badan aan lahaay markaa ku jirtay marna ma iloobi maayo taas. wax aad u adag bay runtii waxaan iloobi karaa marna ma aha. dhibaatada kale kuma aha Cabdifataax Axmed Cabdi wuxuu halkan joogay 6 sano wuxuu hadda caawiyaa dhalinyarada cusub ee halkan soo gaarta sida Cabdiraxmaan Xasan. meel cidla reerkii lacag uu kula hadlaa aanu haysan lacag uu diraa aanu haysan sharciga goor uu soo dhacay aanu garanahay iskuulkii aanu garanahay waxa soo dhan marka la isu geeyo ilmihii waxay ku kalifaysaa in waali caadi galo waxaad arkaysaa nin daayar oo isla hadlaya. Assalaamu calaykum. waxaa jira goobo uu ku soo hiran karo. Cabdiraxmaan ayaan u soo raacay Augsburg oo ka mid ah magaalooyinka qadiimka ah ee Jarmalka. 60 kiiloomitir ayay waqooyi ka xigtaa tuuladiisa. sidaad arkaysaan Cabdiraxmaan Aadan Xasan waa markii ugu horeysay ee halkan uu yimaado hase yeeshee fursad aad qaali ah ayay u tahay. waxa uu la kulmay bulsho Soomaaliyeed oo kala duwan dad cusub ayuu bartay. waa meel uu ku soo hiloobi karo oo iman karo hase yeeshee dhibaatada taagan ayaa waxay noqon kartaa waa safar dheer oo ilaa 1 saac ku dhow isagoo aan shaqaynin arday ah haddana in ay ku adkaan karto in 50 euro uu maalin kasta u soo bixiyo si fursadan oo kale uu u helo. gurigiisa oo aan ku soo laabannay wuxuu Cabdiraxmaan wacayaa hooyadii bishiiba mar ayuu awoodaa markanse kuma farxin warka uu maqlay. maadaama uusan shaqaynin way ku adkaanaysaa inuu caawiyo hooyadii ama ogaado in dib